إلهي يقول سبحانه وتعالى ولا تكن للخائنين خصيما خائنين تهدفاع الأمر هؤلاء دولي هدفاع ما هذا الدفاع سيننا خائنة أو قالوا بي أو رسولك صلى الله عليه وسلم واحد الله صوغبته الله صوغبته محكمة الله صار زواجك وأساس أمالك صلى الله عليه لكن إلا الدفاع ومعلوم الدفاع والريب اللي كنت دفاع شو قال ميدو قال إلهي وحنا كبر يا سبحانه وتعالى دتك الجهل هو هيو مid kastoo qayliya iska rumaysanahay ilaahay ha hanuuniyo hana toobad keenan ninkaana bari ha laga noqdo oo dhinaca laga istaago ha la soo dhaafiyo waxaan rajaynayaa hadii ninka la soo qabto oo gaar ahaan laga soo qabto oo la maxkamadeeyo in roob reemid u diido doono roob u diido oo khayr heli doona oo barkoon doona laakiin adabka abaar haysay oo awal ma yaabanaa bay waxay ku sii darsadeen in nabiga caayay sallallahu alayhi wasallam agarab ku arkisa sallallahu alayhi wa sallam abtiriskiisa waa la yaqaanaa reerku ka dhashay baa la garanayaa meeshu ku dhashay baa la garanayaa halku ku dhintay baa la garanayaa 23 sano nabiyullaahi muhammad magaciisa waxa la yiraahdaa muhammad ibn abdullah ibn abd al-muttalib hooyadiis waa amina bint wahb waa qurashi hooyadiisna waa quraysh oday afrikaan ah inta banaanka naloo soo dhigay in la yiraahdo waa nabigiini macnaheedu waxa weeyaan quraanki waxa lagu soo dajiyay ninka afrikaanka Soomaaliga ah ninka hadalka ku hadlay waa khaa'in kaafir billah dadka degan oo beelaha halkaas degan kamid ah oo ninkan uu ka dhashay oo aan ka soo wada jeedno ilaahay ka cabsada hadii qabiil aad u dhaqnan jirteen maanta nabiyullaahi muhammad sallallahu alayhi wa sallam difaaciisa u dhaqnada